gudiyada qaar ka mid ah xaafadaha degmada Gacan Libaax oo ka mid yihiin xaafadaha Sheekh Nuur aw Aadan magaalo Jimcaale magaalo Gaas iyo Dable Taaga ayaa bilaabay sida ay qaaraan iskaga urur lahaayeen isla markaasna ay u dhisi lahaayeen wadada 150 inta aan hadda dhisnayn oo dhibaato ay kala kulmaan shacabku isla markaasna dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaadhay gaadiid iyagoo halkaasi ku dhacay isla markaasna habeenimidkii xalay tole ciidamada dibdibska Soomaaliland ay ka badbaadiyeen doox ka dhex sameysmay wadadaasi gaari ku dhacay iyo waliba wadooyinka kale ee baahiyaha u qabaan xaafadaasi gudiyada gacanta ku haysa iyagoo hawlahaas dhismooyinka wadooyinkaasi oo ka mid yihiin ganacsada Muuse Xirsi Muuse Dalab Jaamac Rooble Maxamuud Qaalib iyo ganacsada Barkhad Xaaji Cismaan Yuusuf ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah gudiyada xaafada iyo gudiyada iyagoo gacanta ku hayn doona dhismaha wadooyinkani iyo biida ku yaala waa kala duwan yihiin haddana waa sadaqa jaariya saa culimadu idin sheegtay waxa la doonayaa nin waliba wuxuu baxsado iyadoo oo dhulkaagiina ku koraya haddana ilaahay aanu waxba ka nusqaaminay ayaa uu iska xidhmay xalay shilkaas ugu dambeeyo halka laagta inta soo booyo baa ku dhacday laakiin tii ugu dambeysay xalayto qolada dabdamiska si fiican ugu gurmatay Allah ta'ala maantana gudiyadu waa wada joogan guud ahaan halka waxaynu ka samaysano loo kala tagi maayo ayuba inoo xidhmaya insha Allah ta'ala waxaan jecelahay in aynu dadka ku dayano oo horumarka magaalada cashuur bixiyayaal inay waxba arkaysaano in lagu soo celiyo laakiin waa inaynu saayso insha Allah ta'ala arrintan soo koobo wadooyinka ku daayo horta taas waa sida wadada halka la mariyay gabadhuna la marjaa galbi habar baa sidii la qalib sheegay habar baa waa tagtay halka si socotay ilaa hubo dhulkii labada ku rahaa wuxuu marayaa intaasoo halkan ay joogo sidoo uu maraya halkan ay joogo geedashana wada waan gaar ugu barlaha saddex kun iyo afar kun laga siiyay oo maxaan ku faraynaa ma uu badda casba tagno waxa shalay annaga badda cas ka dhigi baa kale waxa hawsha ku jirta siga koonta aatay anu caan badan ma ku leeyahay gudiyo wax qaban weeyay ayaan caan badan ku leeyahay waxaan idin sheegay hadaba gudidu waxba ma qaban kartaa hadda dadku waxa ya fatix xaadnay daamar baan u dhignay lacag waan ururinay daamurkina wali uu yaalaa maalin uu qubtaariyaha maalin bari baa gasho laga soo jeedaa ku dhimata lacagtiina sidii baan u haynaa dawladda hoosena wax badan bay tiri waad la qabanaa laakiin ilaahay ma qadarin 150 laftiisana hawl kala ka jirta waxay la tahay hawlaha waynu qaban karnaaye intaynu isu wada duno tan iyo tooba doo markay u yar tahay ciida iyo barnaamijka waxaan ku shubnaa wuxuu gaaray 3,000 lacag ku dhulay gaadha maalin maayirku isniintii baan loo qoraysaa loo guuri joojiyo ciida iyo dhagaxda magaalada dhigina nafba loo geystaan ku leeyahay maxaan sameynaa oo gudibooda horkacaan oo uqaasho horkacaan oo isku duuban waxba la heli maayo waxaanu sameynaa birish cid allaaliye cid xaafadaas degan oo ka qayb qaadatay way yar tahay waxaan lacagtaasi ka soo ururnay ganacsatada magaalada Hargeysa wadada labada boqol ku hayaa هذا شخصيته كبره أقول لك مثلا إلى وأكثر بالله كلام يحسن وقد مالك بالله هو ما نوع بالله يبارك فيكم يقتك إلا شعور إلا كين تأكلوا أما وحنا لنا هاي إن وحنا قبصوا حتى إذا وحقبلين وحبيلوا هجاج مايا ويان أرين ووقفي marka laga hadlayo muhiimkuna waxa weeye in nin la sugayo adna yaa sugi xaaladda islaam baa bilowday inteena ma islaam ka magac weynaysa marka waxaan leeyahay warin dadaalo hal isku la xidhnaado biriishka qura lacag ku baxaysan cid qiyaasi karin dadku markaa way u soo laakiin hadii jeer waxa loo kala sameeyay nidaam waxa weeye waa dadka habqanka dusha ka soo dhacaya ugu dambeyn waxa halkaas ka hadlay Sheekh Cabdullaahi Xasan Xaashi Berberaawi oo soo jeediyay in dadku ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka waxay ku xiran tahay niyada waxayna xusuusinayaa marka koobaad haddaad wado wax ku darayso iyo haddaad masaajid ku darayso iyo haddaad barkad ku darayso iyo haddaad dhakhtar ku daraysaba
horta waxaad u niyootaa hor ilaahay u niyood cibaadada kuu noqonaysaa markaad ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii aad u bixiso waxaanay kuu noqonaysaa sadaqa jaariya in badan baa anu kollay ka hadlaa dadkeenu waxay u yaqaanay waqti imika oo ay aada u fahmeen masaajidada qura masaajidada waa kuwa aada u batay lacag badanna waa la geliyey waxaa laga yaabaa lacagaad masaajid ku dartay inay ka ajar iyo fadli badnaato midaad waddo ku dartay ama dhakhtar ama meel biyo laga cabo ugu dambeynna xubno ka tirsan guddida iyagoo gacanta ku hay doona dhismaha wadooyinkaasi iyo dadkii kale ee kasoo qayb galay ee iskugu jira guddiyada xaafadaha degmada gacan libaax ee iyagoo iskaashiga bilaabay iyo weliba dadka kale ee degan xaafadahaasi ee munaasabadaasi kasoo qayb galay ayaa halkaasi kaga dhawaaqay qadaryo lacageed iyo dhulal ay ugu deeqeen dhismaha wadooyinkaasi. Luqmaan Maxamed Farax, Bulsho TV, Hargeysa.